cabitaan mushakal caraftiisa iyo macaankiisa inaba caadi maahan. Ani dhinaciisa ma liiga maro cabitaan mushakal Soomaali ay sida hore idinku sheegaba cabitaanada naturalka waa soo badin doona iyo qudaaraadka wadankeena laga helo ka sameeysanayna laba xabo zeytuun qiyaas kugu filan waa isticmaali kartaa iyo jeex babaaya soo jarjartay ways badan loo sameyn karaa siyaabo badan loo sameyn karaa mushakalka dadka markay wax arkaan inay qaldan yihiin maaha qof bas uu sameystaa jeex qara ku darsaday jeexi babaay iyo laba xabo zeytuun hal xabo moos jilcan oo ku darsanaya aad u jilcan jeex amba soo jarjartana oo ku darsaday biyo qabow zaid baraf u lahayn waa kula shiidaya dariiqo kale way jirtaa oo buskud iyo caano lagu daraayo marba aniga saas u sameystaa adii say u taqaana sidee u sameystaa mushakalka da sameysatid mushakalka Soomaaliga aan qaani mushakalka saan loo sameynayo laga sameynayo babaayga mooska qaraha cambaha iyo zeytuunka carafta macaanka dhadhanka waxa lagu magaaro anana ka hawada soo jaawisid sa kalarkiisa ka dareemaysid boqolkiiba natural waay waxyaalaha qudaaraadka wadankeena laga helo oo Ilaahay nagu kaladeystay ka sameeyay waxa rajeynaa inay gabdhaha walaalahayga ama dadka walaalahayga igu xiran inay ka faa'iideysan doonaan cabitaanka markaa shiida baraf iyo sokor midna kulama shiidin dadba si rabaan guriga marka adii sokorta kula shiida kartaa cabitaanka waxa jeclaa baraf fiican iyo sokor macquul inaa ku darsado waxa soo baxaya marka zeytuunka caraftiisa cabitaanka wuxuu ka qaadanaa kaalin muhiim ah waa kaas sidaas quruxda badan oo ku soo baxay cabitaanka mushakalka aad u macaan yahay dadka aan hore u aqoon inay ka faa'iideeyaan rajeynaa sida loo sameeyo mushakal